door wanaagsan ciyaartana ku soo dhawaada tabin kale sheekooyinka ugu weyn dunida kubadda cagta suuqa kale iibsiga Man City oo ku dhawaanaysa wiilka lagu magacaabo Rodrigo maxaa ka cusub xaladii iyo waliba marka wararkii ugu weyn update-ka suuqa oo hal labaan ka dhigi doono ku darso finalka weyn oo waqtigan siin doono waa final kulanka ugu horeeya horyaalka waxa uu ka dhigan yahay final sida kelmadu macna u leedahay Manchester United iyo waliba kooxda kubadda cagta Gunners Arsenal meel kasta oo joogtaan soo dhawaada channelka subscribe saaro si share gare saxibadiina la wadaaga muuqaalka like ku dhiirigeliya aad u mahadsantahay si aad ugu xarantiin barteena aanu ku bilownay marka laga hadlayo maanta waxaad ogaanaysaa horta kulanka labada dhinac ay ciyaari doonaan kulan fudud ma aha maanta waxaan dhigi kareynaa kulan qimma kulan yani halka ugu sareeya marka la eego Manchester United iyo waliba Arsenal United oo doonaysa inay soo celiso marka United la yaqiinay kadib isku day ay sameeyeen hadallo positive ah waqtiyadii ugu dambeeyay dadaal iyo juhdi adag oo kooxda kubadda cagta United ku jirtay in jawi munaasib oo qurux badan ama ifafaalo wanaagsan inay ka diraan Manchester United tii xilaareedka hore aad daawateen wax ka duwan ayaan idin soo wadnaa fariin sidaas ay gudbinaysaa ima Gunners Arsenal kadib xilaareedkii hore waxay dhacay kadib saxiix hadda la keenay inay muujiyaan inay iyagu la qabsanayaan isla markaana kooxda kubadda cagta Arsenal sanadka dhabay ka tahay horyaalka kaanu ka hadlayno Andre Onana waxa uu la dagaalamayaa waqtiga waxaan uu doonayaa awoodiisa jiraaneed inuu helo kadib markii ninkan isagu inta badan kulamada loogu diyaar garoobay xilaareedka uu maqnaa waxa la tilmaamayaa in bedelkiisii uu isagu ciyaari karo ninka Turkiga ee Altay Benyender ninkaas oo suuragal ah in chance la siiyo sida wararkii ugu dambeeyay ay tilmaamayaan ima haddaanu agno wiilka lagu magacaabo Lisandro Martinez isaguna dhaawac ayuu isagu qabaa marka laga tago dhaawacii ACL injury ah ee February gaaray wali 100% ma awoodiisa jiraan sida la tilmaamayo marka sidoo kale Joshua Zirkzee sidoo kale isaguna kulankii ugu dambeeyay ma uusan ciyaaraynin markaas isaga iyo waliba Musar Musrawina waxa la tilmaamayaa in ay markaas dhaawacyo ay qabaan oo aysan kulankan ciyaari karin Amorim waxa uu isagu doonayaa sidoo kale in uu eego Cunha, Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko kuwaas oo ku cusub marka la eego kooxda kubadda cagta ee Manchester ima Arsenal Gabriel Jesus waxa uu ka caafimaaday dhaawacii halista ah ee dhanka jilibka Man United soo gaaray kulankii FA Cup-ka ee January tagtay Trossard isagu labadii kulan ugu dambeeyay ugu diyaar garowga xilaareedka waxa leeyahay sidii la rabay ma ahayn awoodiisa fursad weyn buu haystaa maanta inuu ka qayb galo sida Manchester United marka weerarkuna waxa la tilmaamayaa inuu hogaamin doono Victor Gyökeres oo Arsenal dhawaan ku biiray Arsenal markaad fiirisid difaaceedu waxay tahay mid kamid ah kuwa ugu xoogan bal koox away ah oo todobadii kulan ugu dambeeyay shabaqooda xafidanay ama dagaalamayay way adkeyd marka waana kooxda ugu difaaca fiican Premier League gaar ahaan haysashada xidiga William Saliba tani waxay ka dhigaysaa Arsenal miisa iyo waxay ku soocan tahay oo kaga soocan tahay kooxaha kale ee Premier League marka la eego Manchester United suuqa bay dhaqaale gelisay samarkaana 2025-26 waxay hadaf ka dhigatay isbedel waqti markaas ay wajahayaan kooxda Mikel Arteta kulankan haddaba saameynta Manchester United Sir Jim Ratcliffe way muuqatay kooxdu dhanka dhaqaalaha duruuf bay sheeganaysay oo shaqaale badan bay ceyriyeen laakiin hadafku wuxuu ah in saxiix badan iyagu ay sameeyaan 50 million baa garoonka lagu dayactiray Carrington isla markaana la furay dhawaan kooxdu waxay sameysay isbedel kale oo suuqa kala iibsiga 62 milyan bay Cunha kula soo wareegtay 44 maalmood safar ay ku jireen Bryan Mbeumo baa lagu keenay ku darso 65 milyan baa markaa aakhirkii lagu soo qaatay Sir Jim Ratcliffe waxa uu sidoo kale keenay Benjamin Sesko oo 76 milyan la tilmaamayo Rashford Garnacho ninkii ay ku taqalusay Rashford Garnacho Chelsea uu hadda u socdaa Anthony Betis baa la qiyaasaya haddaysan wax isbedelin Jadon Sancho Roma ayaa ku dhow dalab ka haystaaba markaasi Tyrell Malaysia wali lama sheegin marka waxa soo dhanba waxay u sameynayaan Manchester United isbedel sida ay u heli lahaayeen iyo waliba isku day markaasi in kooxdu ay markaa marxaladii ay ku jirtay ay ka guureyso markaasi Arsenal isbedelka hadii aanu eegno labsadoodu waxay haystaan xidigo cajiib ah marka adeegto weerarka maxaa iska bedeli doona marka laga tago saxiixda cusub Bukayo Saka Kai Havertz iyo Gabriel Jesus bay ahaayeen hadda waxa yimid nin la yiraahdo Victor Gyökeres kaas oo isagu markaas cajiib ah weerarka dhankaas buu ka ciyaari doonaa Saka dhanka buu qaadan doonaa garabka iyaduna waa la eegi doonaa waxa iska bedeli doona Gunners Arsenal marka laga hadlayo
sababtoo ah Gunners Arsenal waxay u baahan tahay sida ugu wanaagsan inay u dagaalamaan markaad fiirisid heshiis cusub ay keeneen qadaxe oo Zubimendi ah kaasoo hadda bishii Luulyo kooxda ay keentay 63 milyan waxaa lagu keenay ninkii ahaa Gyökeres Kiba Arrizzi Blackhead ka bay jooga Norgard Christian Muslera xitaa Nuno Mendes 48 milyan lagu keenay markaa waxay hadda iibinaysaa Samuel Konga, Hein, Fabio Vieira, Nelson intuu way ka dhamaanayaan marka la eego marka Arsenal rajadeeda hadda waxay tahay in maanta ay muujiso saxiixda cusub ay yimid in ka badan kuwa Manchester United sababtoo ah Arsenal waxay rabtaa inay diyaar u noqoto markaa kulankan ima Amorim haddii laga hadlayo sidoo kale rajo buu qabaa in isbedel uu sameyn karo natiijooyinkiisa ay wanaagsanaan karaan waxa laga bedeli kara xaaladda suuqa xidiga kale laga soo qaadi karo maalmaha haray iyadoo sidoo kale hadaf ay sameysteen xilaareedkii hore oo kale markaad fiirisay 32 dhibcood bay sare u fiirinayeen Arsenal in dhibco sidaas ay gaaraan taariikhda mar qura bay dhacday Premier League 1994 markaas oo Man United 37 dhibcood ay ka sareysay Arsenal inkastoo waqtigaas ay 42 kulan markaas marka United waxay ku dhameystay markaa kaalinta markaa labaad xilligaas Arsenalna waxay markaas gashay kala bar heerka hoose waqtiga markaa hadda United waxay higsanaysaa project markaa project 150 oo ah bartilmaameedka sanadka 2020 inay ku guuleysan doonaan horyaalka Ingiriiska waqtigaas hadafku wuxuu yahay in kooxda Premier League markaas ay qaadiyada u dabaaldegaysa asaaskeedii sanad guuradii 150aad ee asaaska Manchester United marka hadafka horta waa sidaas marka la eego labada kooxood marxalado adag bay ku kala jireen xilaareedka la soo dhaaf midna horyaal bay u tartantay midna Serie B bay ka badbaadaysay marka oo aakhirkii hadaysan wax isbedeli leh maalmaha ugu dambeeya laga yaabay in waji kale sheekadu ay yeelan lahayd runtii oo haddii waqti hore aan la go'aaminayn naadiyada heerka labaad u noqonayo waxba isbedeli lahaaba sidoo kale naadiga kubadda cagta Manchester United xidiga ugu khatarta badan Arsenal ay wadato maanta waa Bukayo Saka markaas waxa wajahaya nin la yiraahdo Patrick Dorgu Benjamin Sesko Lini Europa markaas ninkii Victor Gyökeres Lini Europa wajahaya Benjamin Sesko Saliba ayaa wajihi doona way mar walba xidiga ugu toobka ah waxa loo dhiibaa Saliba markaasi sidoo kale xidiga badan oo iswajihi doona qadka dhexe malaha Arsenal way ku fiican tahay Zubimendi joogitaankiisu iyo waliba ninkii Mikel Merino iyo Odegaard iyo Rice ama Rice Merino ma filayn la siin doonay Rice Zubimendi iyo Odegaard qad dhexe oo cajiib oo mug miisaan leh ayuu noqon doonaa markaas Manchester United Manchester United tactician waxaad arki doontaa iyadoo isku dayaysa inay ciyaarta fur waxa u fiican marka la eego Arsenal kubadda si la dagaalan counter attack sidoo kale mushkilad bay Manchester United sanadii ugu dambeeyay la dhibaatoonaysa pressing markay cadaadinayeen raba kubadda inay ka soo celiyaan oo ka joojiyaan cadaadisku si wanaagsan ma dabaqi kareen la xitaa Ten Hag wala Amorim marka inkastoo ifafaalo wanaagsan kulamada qaar laga arkay Amorim laakiin way adag tahay sidaas daraadeed kulankan waxa uu noqon doonaa mid laba aan kala qaybin doonin mid cajiiba dadka hadda qobarradu waxa inta isku raaceen kulankan inuu xiiso lahaan doono marka la eego Manchester United waxay u baahan tahay in ay ciyaarta xirato isla markaana kubadaha counter attack Arsenal ay kula ciyaarto kubadda ay siiso oo ay sugto markaasi 4-4-2 kale kulan markaas waayo hadda tiraahdo Arsenal ba ciyaar ku furaya qad dhexe oo adiga markaa balance gareyn kara Rice Odegaard ima haystid kubad joojiye cajiib oo fiican ma haystid markaas xitaa Odegaard markaasi ogaarta haduu joojiyo mashaakil baa jira markaas ma bixin karo kubadda ma la socon karo Arsenal waxay ka mid tahay kooxaha ugu badan ee marka waqtiyadii ugu dambeeyay pressikoodu kordhay awoodda u leh gooshaad inay ku joojiyaan soo cadaadinaya waqtiyada qaarkii si iyagu kubadda ay kala wareegaan way kubadda heesada aad bay ugu fiican yihiin marka Manchester United maanta waxay rabtaa guushadii boqolaad inay ka gaarto Gunners ma fududa inay gaarto markaas Arsenal waxaan arki doonaa iyadoo weeraraysa laakiin United ciyaar xiran ciyaari doonta counter attack ay ka faa'iideysan doonto sidoo kale United waa inay ku dadaashaa garabyada markaasi laadka crossada ka imaanaya sababtoo ah boxka waxa kugu jira weeryahan aad u fiican oo leeyahay Benjamin Sesko markaas Ma United ma ka faa'iideysan doontaa mise ninka Arsenal buu ku dhawaa kooxdii soo dalbatay buu wajahaya Arsenal baa tiri kaale nagu soo biiray markaas ma doonayo Real ka anaga ugu dhow sanadka dambe waa qaadayna maxay tahay kuwa
markaasuu doortay marka xiddig kasta meesha uu jecel yahay ayuu isagu aadayaa kubadda cagta weli haddii ay jiraan meel oo markaa aan loo fiirinayn dhaqaalahan keliya waa wanaagsan marka lin euro ninkii ahaa show iyo delect ayaa laga yaaba inaad aragtaan haddii Harry Maguire diyaar yahay waan arki doonaa show inkastoo waa ciyaar ama ciyaar dood ay ka taagan tahay markaas halkan Odegaard iyo weliba marka Rice iyo Zubimendi ay qadka dhexe qaadan doona Martinelli Saka iyo afkoro Gyökeres saas bay noqon doontaa shaxa Benjamin Sesko Cunha iyo Mbeumo ayaa la qiyaasaya kulankan haddii aan saadaaliyo anigu waxaan qiyaasayaa 1-1 ama 2-2 inuu ku dhamaan karo barbare inuu noqon karo markaas waayo kulanku waa kulan adag marka la eego mana fududa kooxaha weyn United inkastoo ay liidatay ciyaareedkii hore de kooxaha weyn markaas heybadooda ataabatay de isbedel baa imaanaya marka kooxda sidii ahaanaysay si uu ciyaariyeen kulama ciyaaraya marka xitaa haddii uu khilaaf dhacdo mashaakil dhex jiro marka ma sahlan wararka ka imanaya waddankaasi Ingiriiska waxay sheegayaan Donnarumma in adiga kubadda cagta Manchester United dalab ay Manchester City dalab ay ka gudbinayso xogu waxay sheegayaan safka kooxdaas inuu aadi doono xogii ugu dambeeyay saas baan leeyahay waliba yes buu isagu yiri shakhsiga already warbaahinta qaarkood waxay leedahay waaba la gaaray Manchester City waxay sidoo kale ka shaqeynaysaa Rodrigo marka uu soo gabagaboobo marka bixitaanka Savinho kaasoo ku biiraya kooxda kubadda cagta Tottenham Spurs markaas Manchester City waxaa leeyahay wiilkaas wuxuu arkayaan mid cajiiba Rodrigo mid kamid ah ugu fiican cajiibka nadiif kubadda cagta Real Madrid safkeeda ka iman doona mid kamid ah kuwa topka marka Man City wiilkan waxay daneynaysaa in safkeeda ay geeyaan waxaanay u dhaqaaqi doonaan marka ay soo gabagabeeyaan xidiga Cunha marka xidiga lagu magacaabo Savinho uu baxo ay keeni doonaan Rodrigo maxay kula tahay si shirka